bismillaahi raxmaani raxiim asxaabta qiimaha iyo qaayaha naga mudan ee ku xiran bartan youtube-ka ee idaaja media ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamij xiise gaara leh. barnaamijkan oo aan uga hadli doono farqiga u dhexeeya qaxootiga ku nool dalka Turkiga iyo kuwa ku nool dalkaasi Greega iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan inta ay ku guda jiraan safarka dhibta badan ee ay doonayaan inay ku tagaan qaar ka mid ah wadamada Yurub. barnaamijkan xiisaha leh waxa maanta marti ku ah wariyaha rugcadaaga ah ee Maxamed Aways Muudey oo loo yaqaano boqorka bartamaha. boqorka oo hadda ku sugan qaaradaasi Yurub ayaa wuxuu maanta marti ku yahay idaaja media, wuxuuna warbixin dhameystiran inaga siin doonaa dhibaatooyinka iyo farqiga u dhexeeya qaxootiga ku nool dalka Turkiga iyo nolosha dalkaasi Greega. Maxamed Aways Muudey ku soo dhawow idaaja media. سند أحمد إذا جاء ميديا رنتي بريها الدب وحلصه بحي وجيهر له وحنا أركيسا إن وساقاته وحياة عجيبة مركا أنا قلنا ما أنتم حنسكت إياه إن كهذا الله فرق يقول حياة قحوتية كنا قن جريجا يكن كنا قن ذلك تركيا وهذا شيء كذا يكون بالأبن إنساسية marka ugu horeysa magaaladani Athens la yiraahdo waa magaalo qadiimi ah marka loo eego wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska oo ayagu sida badan lagu sheego inay yihiin wadamada barwaaqo sooranka Commonwealth-ka kuwa markaasi sida qadiimiga ah inay yihiin lagu sheego iyadoo magaalada ay tahay magaalada caana magaca Greegana iyo magaca dheer waxa meesha ka maqan xagga nolosha bini aadanka ama shaqada oo ay ku liitaan amnigeedu aad buu u sugan yahay dadka soo galootiga ee qaxootigana aad bay u soo dhaweeyaan runtii mar haddaad soo gasho waxay kugu soo dhaweynayaan niyad sami kalgacli sacbo furan laakiin intaada soo gelin ee aad xuduudda Turkiga iyo Greega u dhaxaysa soo maraysa ayaa waxaa jira gawaari gaashaaman oo nolol waaweyn ku rakiban oo markaa in lagugu soo ifiyo ku qabanaya kuwaasoo markaasi xabsiga inay ku geeyaan dabadeedna faraha ka qaadaya oo jasiirad kale ku dejinaya qaxooti ahaan ku qaadaya wadamada Turkiga iyo Greega waxay kala duwan yihiin dalka Turkiga markaad joogto qaxootinimadaadu waxay faa'iido leedahay ma jiro waayo waxa lagu siinayaa edikar oo qaxooti guri lagu siinayo lacag lagu siinayo laguma dhoofinayo adaan kiidadii baxsanaya adaan raashinkaagii baxsanaya adiga kaarka u baad ka haysanaysaa ilaa ka dhimato laakiin Greega wuxuu ku fiican yahay waa lagu qaabili xera lagu geyn xerada markii lagu geeyana waxa inta ku dheer lacag gudaha ilaa iyo 90 euro ay ku siinayaan oo u dhiganta $120 something like that muddo 3 bilood kadib waxa ku siinayaan kaar isku laaba waxay ku leeyihiin magaalada tag gurigaas ku jiray inta kadibna muddo 6 bilood kadib waxa ku siinayaan baasaboorkoodii Greega ah dabadeedna waad ku dhoofaysaa markaad ku dhoofto Sweden iyo Norway iyo Holland meeshii aad tagto laguma qaabilayo isma dhiibi kartid laakiin waad ka shaqaysan kartaa baasaboorkaas adoo wata maqaayado iyo dukaaman iyo baarar iyo meelihii laga shaqayn jiray ama garaashada waad ka shaqayn kartaa laakiin waxaad wataa baasaboor caalami ah oo la aqoonsan yahay ayuu ku siinayaan marka dadka badana waxa isaga qaldan Turkiga iyo Greega faraq u dhaxay marka waxay kala duwan yihiin waa dhinaca sharciga iyo karaamada dadka bini aadamku u baahan yahay qaarkood marka dad badan oo Soomaali ah oo aan joogi jiray dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul iyo Ankara ayaa ku soo qulqulaya magaalada Athens ee Greega waxaana si weyn ugu soo qulqulayaan magaalada caanka ee Athens kuwaasoo dhammaantood markaa aragto ayagoo faraxsan aad arkayso qaar waxay ku baxayaan bug waxa la yiraahdo oo baasabooro la sameeyo asagu eg iyo mataqaan joornooyin bay ku baxayaan oo Talyaaniga qaarna waxa weeyaan ayaga intay isdhiibeen ay soo qaateen baasaboorodoodii ay dhoofitaan caadi u dhoofayaan qaarna waxay soo qaateen kaararkii magaalada lagu soo galayay guryahana la dejinay marka badankoodu waxa weeyaan aad bay uga duwan yihiin kuwa Istanbul iyo Ankara jooga sidaa awgeed waxaan leenahay dawladda Greega
waxaa ka maqan oo keliya aqoonsigii soomaaliya ma laha dowladda gariiga safaarad soomaalidu leedahay oo ku taalla dalka gariiga ma jirto ninka soomaaliga ah awood uma laha inuu dacwoon kara haddaa sababtoo ah ma laha magac soomaaliyeed ama safaarad u dacwoonaysa ma jirto sidaa awgeed waxa weeyaan inta keliya ee qaladka ka jirayay waxa weeyaan safaarad la'aanta inta kalena way wanaagsan tahay dalka gariiguna waa dal qadiimi ah oo runtii taariikhda markaad fiiriso meelo badan oo xusuus ah ayuu leeyahay loo soo dalxiis tago aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha weyn ee rugcadaaga ah maxamed aways muudey boqorka bartamaha oo nooga warbixinayay nolosha iyo farqiga u dhaxeeya qaxootiyada ku nool Turkiga iyo Greega iyo dhalinta Soomaaliyeed dhibaatada ay kala kulmaan safarkaasi aad buu u mahadsan yahay wariyaha inta aan ku kulmayno barnaamijkan kan xiga idaa jaa oo idinkaga tagay nabadgelyo haddaad nagu cusub tahayna fadlan subscribe leh oo ku share garee asxaabtaada oo dhan